dhowr jeer oo fadhi ay soo martay heerarka maxkamadeynta labada horjooga ee ka tirsan maleeshiyada Daacish kuwooda dhibka ka wada Soomaaliya. Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yaasiin oo ah eedeysanaha koowaad ayaa loo heystaa inuu ku mashquulsanaa aasaasida koox Daacish ah kuwaas oo ka howlgeli lahaa koonfurta Soomaaliya. waxa uu xilligaasi khilaaf kala dhaxeeyay ninka ugu sarreeya Daacish kuwooda jooga Soomaaliya ee Cabdiqaadir Muumin. Maxamed Daa'uud Daahir Warsame Toraaga ayaa loo heystaa inuu ahaa horjoogaha caafimaadka. waxa uu sidoo kale ahaa u qaabilsanaha xagga soo ururinta lacagaha ay dibadda ka helaan. waxaa si gaar ah eediisa loogu muujiyay sida uu uga gamban jiray ka ganacsiga daawooyinka markiisii hore ka bilaaway suuqa Bakaaraha. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Suute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u akhriyay warbaahinta xukunka ay ka soo saareen labada horjooga ee ka tirsan maleeshiyada Daacish. maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddeyn laga qoray markaatiga, qiraalka laga qoray labada eedeysane, qoraalka uu eedeysanaha koowaad u qoray horjoogayaasha Daacish ee Shaam, iyo gungaarka baarista uu sameeyay baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedeysane. maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedeysanayaasha xabsiga laga sii daayo xuriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii Daacish sanad ka hor, haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaal 1 Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yaasiin, 2 Maxamed Daa'uud Daahir Toraaga ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. eedeysanaha koowaad ee la xukumay ayaa isaga haysta dhalashada Ruushka. magaca Abu Yaasiin waa wiil ee u dhashay gabar Jaajniyaan ah, wuxuu sidoo kale qayb ka mid ah noloshiisa ku soo qaatay waddanka Siiriya. halka Toraaga uu ahaa madaxa caafimaadka, wuxuu sidoo kale qayb ka mid ah noloshiisa ku soo qaatay dalka Koonfur Afrika iyo ka mid ahaanshiyaha maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.